agaasimaha maamulka IMF Kristalina Georgieva oo kulan la yeelatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shaacisay in si buuxda ay u taageersan tahay dadaalada loogu jiro Soomaaliya in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay horanta 2020 waxaan kulan miradhal ah shalay xarunta dhexe ee IMF kula yeeshay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaan uu hambaliyay dhaqangelinta xoogan ee joogtada ee uu ka sameeyay qorshaha dib u habaynta dhaqaalaha Soomaaliya iyadoo ay jiraan caqabado badan waxaan iska wareysanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya muhiimadda ay leedahay in deynta looga cafiyo sida ugu dhaqsaha badan iyadoo la raacayo hindisaha wadamada saboolka ee aadka u deymaysan ee loo yaqaan HIBC ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ay soo saartay hay'adda IMF war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay intii uu socday kulanka in ra'iisul wasaaruhu uu ku celiyay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay dib u habayn iyadoo la raacayo barnaamijka SMB waxa uu sidoo kale adkeeyay dhamaystirka qorshaha qaranka sagaalaad ee dhawaan golaha wasiiradu ay ansixiyeen dhamaystirka qorshaha horumarinta qaranka iyo dib u habayntu waxa ay qayb ka yihiin shuruudaha hindisaha wadamada saboolka ee aadka u deymaysan HIBC joogteynta shaqo wanaagga xoogan oo ay la jirto taageerada saaxiibada caalamiga waxa ay wadada u xaaraysaa Soomaaliya iyo in deynta laga nadiifiyo mustaqbalka dhow ayaa uu yiri ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaan u xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha in IMF ay si buuxda u taageersan tahay dadaalada Soomaaliya ee deyn cafinta oo ay ka mid tahay in la shaqeeyo xubinimada sanduuqa ee lagu sugayo khayraadka maaliyadeed ee muhiimka u ah deyn cafinta IMF iyo daboolida qarashaadka ku baxaya deyn cafintaasi taageerida IMF ayaa xoojinaysa galaangalka dawladda iyo dadaalka lagu doonayo in Febraayo 2020 dawladda Soomaaliya laga nadiifiyo deymaha lagu leeyahay si ay ugu furmaan albaabada hay'adaha dhaqaalaha Maxamed Salabaan Somni TV